Yo guys, waa idin salaamay dhamaantiinaba meel walba oo caalamka joogtaan. Waa anigoo walaalkiina Amiin Xasan ah. idin la ku soo dhawaada mar kale iyo YouTube channel-kayga. Haddaad ku cusub tahayna waxaan ka codsanayaa inaad subscribe iyo saartid aadan ka hilmaamin inaad taawatid gambaleelka sabto la socotid muuqaalada soo socda. taawasho maanta haddaad u fiirisid wax walba waxay ku xiran tahay waa taawasho walbana wax ayay si xambaarsan tahay sidii cunuga markuu dhashto kadib oo qabto gacanta aabihii ama hooyadii markuu taabto ama uu qabto taawashadaas waxaa waaye kalsooni. waxaa jirtay wiil iyo aabihii waxay goonayeen wawi markaasoo biyihii aad ayay u bateen gacanta aabihii wiilkii ayaa gacanta aabihii qabtay markii biyaha u arkay oo batay markaas wuxuu dhahay aabu miyaha adiga gacanta iga qabo marka aabihii wuxuu dhahay hadda aniga ku qabto ama hadda adiga ay qabatay soo isku midkii ma ahan maya ayuu dhahay waayo aniga waxaa laga yaabaa biyaha haddii sii bataan inaa gacantaada aan sii dayo laakiin adiga haddaad i qabatid aniga biyaha si walba u bataan lagama yaabo inaa gacanteeda sii daysid. marka taabasho walbo wax ayay xambaarsan tahay sidoo kale ogow maanta wax walbo taabasho ayay noqdeen. haddaad rabtid inaad qof wacdid hal taabasho ayaa kuu filan. haddaad rabtid inaad qof message u dirtidna hal taabasho ayaa kuu filan. sidoo kale haddaad rabtid inaad aad email aad dirtid hal taabasho ayaa kuu filan. marka naftirkeeda taabashadaada waxay u sababi kartaa qofka inaad dhaawacdid ama qof inaad farxad gelisid halkaaga taabasho oo kaliya. saas ay tahayna weli si ma gaarayso inaad qofka asiga aad la fadhiisatid aad gacanta aad ka qabatid waayo waxaa laga yaabaa inaad qof aad ka xanaajisay hal taabasho ayaa kuu filan inaad call aad ka wacdid ama message dheer aad u dirtid oo send aad dhahdid halkaas taabasho ayaa kuu filan inaad raali gelisid. laakiin waxaa kasii wanaagsan inaad asiga aad la fadhiisatid aad gacanta aad ka qabatid aad raali gelisid. taawashada aad telefonka aad taabanaysid iyo taawashada aad asiga gacanta ka qabanayso different weyn ayaa u dhaxeeya. marka ogow taawashadaada qofka ayay qalbiga ka taaban kartaa ama hoose dhaawici kartaa ama farxad ayaad aad geli kartaa qofkaas. waa halkaaga taawasho. marka ogow wax walba aad taawanayso qof ayay saameyn ku yeelan kartaa. inta aan ku wada kulmi doono muuqaal kale oo sidaan ah waxaa idinka tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.